war qoraal oo xalay ka soo baxa filla Soomaaliya isla markaana lagu baahiyay baraha ay leeyihiin warbaahinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada la taliyaha amniga qaranka iyo kusimaha hay'adda nabad sugidda qaranka inkastoo warbaahinta dawladda laga saaray qoraalka madaxweynaha kadib amar ka soo baxay ra'iisul wasaare Rooble haddaba khilaafka ka dhaxeeya madaxda ugu sareysa dalka oo maalmo ka hor soo bilowday ayaa hadda u muuqda mid yeesha saameyn xooggan ra'iisul wasaare Rooble ayaa qaaday tilaabooyin isxiga oo ay qayb ka tahay xilka qaadistii taliyaha Nisa Fahad Yaasin iyo magacaabista Bashiir Goobe isagoo ra'iisul wasaare Rooble uu taageero xooggan ka helayay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta ee xilka madaxweynaha Soomaaliya ismaan dhaafka soo kala dhaxgalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo hay'adda Nisa ay sheegtay inay dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab taas oo muran badan dhalisay qaar ka mid ah bulshada degmada Cadaado oo siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa aragtidooda ku cabiray sida tan adeer waxa weeye ummadda Soomaaliyeed way u caddahay waxay ku kala muuqato inna waa nin sharci haysta inna waa nin sharci darro ku socda xukuumadda dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2001 bishii Abriil Febraayo bay ku dhamaatay golaha baarlamaankana bishii December buu dhamaaday sida awgeed sharciyadii ummaddu u dooratay nimanka way ka xirantay dastuurka marka waxa ku qoran qodobka 103 xukuumadda xilgaarsiinta inta laga helayo xukuumad kale oo macnaheedu ay tahay inaan firaaq la u sandhicinin awooddaasna waxa iska leh ra'iisul wasaaraha marka sida awgeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaahay baa kashifay ummadda Soomaaliyeed horteeda ku kashifay isaga iyo inta uu wataana waxay ku socdaan sharci darro ra'iisul wasaaraha iyo intii la socotaana waxay ku taagan yihiin sharci waxay sad la yiraahdaa ma jirayaan kaba duwananin boondheer guri ka kireystay wax uga duwan yahay ma jirto 300 milyan oo qofood buu dhex degan yahay Maxamed Cabdullaahi isagoo boorso wato yimid haday hadda la noqotay inuu khasab ku xukumi karo oo sharciyadii inta ka dhamaatay wuxuu ku xukumi karana waxay la tahay waa aqli aan loo fadhin weeye waxay ka bedeli kartaa doorashada waxba u dhimi mayso dalkana waxba u dhimi mayso isaga baa isku sii fogeynaya ragaadka oo waxa weeyaan waxay ka soo xiraysaa irdii u furaa oo ahaa inuu sharxo inuu dadka been dambe u sheego oo yiraahdo madaxweynaha idin noqona waa fiicanahay waxa baa ka soo xirmaya mooyaane wax ay doorashada u dhimi doonto dadka Muqdisho doogana u dhimi doontaa ma jiraan insha Allah wallahi dhinacyo iskhilaafsan anigu ma garan karo dhinacyo iskhilaafsan ma garan karo waxa weeyaan aniga khilaaf uma aqaanin maryaha dhigtay oo meel cidla iska wareegaya weey ninkaasi ra'iisul wasaare waxaan ugu boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed inay gacan siido ninka maanta taagan qof muwaadina oo dastuuriyana oo madaxweyne u ahaa inuu ilaalin waayo oo dhiigeeda uu hudur ka dhigo oo ninkii dilay uu garab siiyo kaasi waxa weeye waa khayru mas'uul waaye marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa aad ku heshiideen iyo waxa loo socdo iyo doorashada iyo amniga ku gacan siiya ra'iisul wasaaraha asaasaan ugu baaqaya ummadda Soomaaliyeed tilaabo sax iyo badkaladan u arkaa tilaabo sax waxa mid ra'iisul wasaaruhu u qaaday sababtoo ah dalka maanta asaga hogaaminaya xukuumaddiisa hogaaminaysa madaxweynuhu waqtigiisa waa dhamaaday marka waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay Maxamed Xuseen Rooble waxaan leeyahay dalku badbaado u baahan wuxuu u baahan yahay dalka in laga badbaadiyo ila meeraysada hadda ka socota filla Soomaaliya marka sida la ajligeed waxaan leeyahay waa in uu joojiyaa Cabdullaahi Farmaajo qaska iyo qalaanqalka iyo dhibaatada wax uu wado ka joojiyaa dalka hadduu musharaxiyaan waa inuu soo diyaar garooba hadduuna ahayna waa inuu iska tagaa waxaan leeyahay looga dambeeyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ayagoo dalku galay dhibaato iyo hidbow dagaal iyo siyaasad isdaamarsiisan maanta keenay inuu doorasho dalka u jeeyo qol kasta oo doorashada ka hortimaadana talaabo sharci laga qaadana taasaan u baaqay runtii siyaasadda guud ahaan dalka iyo khilaafaadka waayahan jira waa mid aad ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan saameyn ugu yeeshay qulubtooda rajo xumana ku riday xaqatan haddii aan u soo laabto tilaabooyinka ay kala qaadayaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha runtii waa
waa mushkilad aad u weyn oo wareer gelisay shacabka waxaana moodaa in yacni ay ka sii daraydo xaaladdu mar walba runtii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waxay qaadayaan laba tilaabo oo aan aaminsanahay inay tilaabooyin kala duwan oo aaminsanahay inay waddanka dhaawac u geysan karaan haddii aan si degdega loo xallin waxyaalaha khilaafka keenana aan si daacadnimada loo raadin oo aan loo turin shacabka iyo hooyooyinka ku dhibaataysan dalka oo intooda badan waddooyinku ka xiran yihiin oo yacni iyo dagaalbeeleedyada ka socda dalka oo ay moodo dawlad xumada iyo ay keentay isqabqabsiga madaxda ugu sarreeya ee waddanka soo dhex galay marka waxaan aaminsanahay inay yacni saameyn weyn ku yeelanayso doorashada iyo horumarka dalka uu gelayo isqabsiga ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aad u weyn yacni waxaan dareemayaa inay saameyn weyn ku yeelan karto maadaama ay tahay labada xafiis ee ugu sarreeyey dalka doorashadana mas'uul ka ahaa ra'iisul wasaaraha madaxweynuhuna geedfadhi u ahaa isqabsigaas u yimid caqabad weyn oo keeni karaa markii dhanka kale loo fiirsho waddanku maamul goboleedyadu leeyahay waa federal system taas marka waxaa dareemi karaa in ay soco karto doorashadii oo maamul goboleedyadu ay wax badan ka qaban karaan doorashada sii socodkeeda laakiin saameyn way ku yeelanaysaa oo caajis badan inuu dhacaa laga yaabaa oo jadwalkii ay soo saareen dhowaan guddiga doorashada uu sidii lagu talagalay u hirgeli waayo waxaan ugu baaqi lahaa in yacni wax walba lagu wada xalliyo sida ugu wanaagsan sida ugu dhow ee xal lagu heli karo laguna dadaalo in waddanku uu helo system degan xasiloonida lagu dadaalo sidoo kalena shacabka Soomaaliyeed inta badan cayaar yacni waxaan moodaa dadka siyaasiyiinta inta badan inaysan u muuqan cawaaqib xumada ka dhalan karta dhibaatada iyo isqabsiga taas awgeedna ay yacni hadalkii uu ku ekaaday in xisbi iyo taageero marka waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta dhammaantood ama ha ahaadeen dawladda ama bannaanka ha ahaadeen yacni inay ka tanaasulaan waxyaalaha taageerada gaarka ah ay u tanaasulaan waxyaalaha danta iyo dalka والله horta doorashooyinka in bayna dib u soo dhacayeen xiisadana hadda sida muuqata saameynteedu ma badna laakiin macquul waa inay saameyn ku yeelato dib u dhaca doorashada oo hadda kiiskan iyo arrimaha qalaasan lagu mashquulsan yahay dhinacyada siyaasadda isdiidan horta waxa ugu baaqaya marka koowaad in miiska hadalka lagu laabto marka xigtana inuu farmaajo sharciga u hoggaansamo sharciga dalka aqbalo iyo qodobada dastuurka qabanayo inuu u hoggaansamo intaas ku baaqaya هاشم عمر حسن زم نيوز تي في على ذو